بسم الله الرحمن الرحيم aan wax ka barano farqiga u dhaxeeya market growth iyo market share haddaan ku hormarno market growth ama kobaca suuqa waxaa loola jeedaa kororka guud ama waa imisa qiimaha suuqa muddo cayiman haddii uu ballaartay suuqa ama haddii uu sii yaraanayo waana halbeeg lagu qiyaaso sida guud ahaan suuqa uu u fidayo ama hoos haddii uu u socdo si aan u fahanno qeexidaas aan isla aragno tusaalahan aan dhahno suuqa lagu kala iibsado mobilada sanadii 2021da waxa uu ahaa 100 bilyan halka sanadii 2022da uu ka noqday 150 bilyan waxaan dhihi karnaa suuqa mobilada waxa uu sameeyay koror dhan 50% midaas oo aan ku keenay 150 bilyan haddii aan ka jarno 100 bilyan ee sanadii hore waxa inoo soo baxaysa 50 bilyan kadibna haddii aan u qaybino 100 bilyan ee isla sanadii hore kadibna aan ku dhufano wixii noo soo baxa 100 waxa inoo soo baxaysa in suuqa mobilada uu sameeyay koror ama siyaado dhan 50% midaas ayaa waxaa loo yaqaanaa market growth ogowna in sidoo kale suuqa uu soo dhac ku imaan karo markana aan isla aragno qaybta labaad oo ah market share ama saamiga suuqa ee shirkad cayiman ay leedahay waxaana loola jeedaa waa imisa saamiga ay shirkad X ka leedahay suuq cayiman sida suuqa mobilada suuqa isgaarsiinta suuqa lacagaha iyo wixii la halmaala waana cabirka iibka ama dakhliga shirkad marka loo eego wadarta guud ee suuqa si aan qeexidaas u fahanno aan isla aragno tusaalahan haddii aan sii wadano tusaalaheeni ahaa suuqa mobilada aan dhahno shirkad X oo gada mobilada si aan u ogaano sanadii 2022da saamigii ay ku lahayd suuqan inta uu la egyahay waxaan fiirinaynaa qiimaha mobilada ay gaday waxaan ogaanay inay dhan tahay 20 bilyan haddii 20 bilyan aan u qaybino qiimaha guud ee suuqa midaasoo ah 150 bilyan kadibna waxaan ku dhufanaynaa 100 oo haddaba tijaabi waxaa la rabaa inay kuu soo baxdo 13.3 boqolkiiba haddaba waxaan leenahay saamiga shirkad X ee suuqa mobilada waa boqolkiiba 13.3 gunaanad market growth ama kobaca suuqa waxa uu xooga saaraa inaan ogaano suuq cayiman inta lagu guda jiro muddo cayiman masiyaado ayaa imaatay mase nuqsaan halka market share ay qusayso shirkad cayiman saamiga ay ku leedahay suuqaas inta uu la egyahay mahadsanidin waa inuu markale haddii rabbi idmo